بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن وعن مeel kasta adduunka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan kooban oo daba socda videogeygii hore aan oga hadlay arintii xarigii daba casar ee magaalada Hargeysa. runtii dhowr qodob oo dadka iga soo gaaray ayaan rabaa inaan halkan uga jawaabo. waa dhowr qodob oo runtii igu kalifay inaan videogan sameeyo, laakiin inta aanan sameynin waxaan rabaa marka hore inaan halkan ka sheego kana cadeeyo inaan ka xumahay dhibaatadii loo geystay daba casar iyo xarigii loo geystay. isla markaana waxaan laamaha ammaanka ee Soomaaliland ugu baaqaya inay ninkaas si fiican oo la dhaqmaan, isla markaana ay ilaaliyaan naftiisa iyo caafimaadkiisa aysan wax dhibaato u geysanin. inta kadib waxaan rabaa inaan sheego dhowr qodob oo dadka iga soo gaaray. qodobo badan oo la yaab leh ayaa soo gaaray, laakiin dhowr qodob oo muhiim ah ayaa ina sheegaya. isla markaana waxaan isku dayaa jawaab kooban inaan ka bixiyo. dadka qaar waxay soo qoreen ninkii noo shactireen jiray oo naga qoslin jiray ayaana laga xiray. intaad u doodi lahayd Naasirow ayaad maaragtay ku adkaysay ayay dadka qaar ii soo qoreen. cajiib. dadka qaar waxay soo qoreen nin daarood ah ayaa la xiray, waxaana xiratay beesha Isaaq ayaa xiratay oo ku xadgudubtay. maanta daarood iyo Isaaq ayaa shakada maraysaa, markaasaad Isaaq garab siisay oo dawladda ugu yeertay. dadka qaar waxay soo qoreen masayr baa ku hayo, ninkan waxaad ka xuntahay sida maaragtay loo soo dhaweeyo Hargeysa loogu sacabatumay iyo dadka daawad ayaa ka xuntay. dadka qaar waxay yiraahdeen nin waalano xanuunsan buu ahayo in laga hadlo, in la xiro, in mataqaana booliis loo soo diro intaba ma ahayn oo dadkii xiray ayaaba ka waalan bay dadka qaar taagan yihiin. qaar waxay leeyihiin Soomaaliland ayaa dawlad ku sheegtay, qaar waxay yiraahdeen ceebihiisa ayaa faafisay. marka intaan soo sheegay haddaan qodob uga jawaabo, runtii qodob koowaad oo oranaya ninkii noo shactireen jiray waa wax laga xumaado in ay dadka qaarkood ugu xun yihiin xariga daba casar inay waayeen shactiradii iyo live-kii ay daawan jireen. waa arrin aad iyo aad looga xumaado ina gubayso, waana qodobka ugu muhiimsan ee ugu kalifay inaan videogan duubo. daba casar walaalayaal wuxuu ahaa shakhsi kamid ah ummadda Soomaaliyeed, isla markaana aragtidiisa cabira sidoo rababa ha u cabiro. dadka qaarkood aysan jeclaysanin, mararka qaarkood wuxuu ku hadli jiray wax fiican oo macquul ah, mararka qaarkoodna wuxuu gali jiray bado aan fiicnayn iyo waxyaalo laga fiican yahay. laakiin inaad uga xumaatid inaad ninkii ku shactireen jiray aad weysid ayaa horta waxay tahay dhibaato. haddii aad shactire rabtidna waxaa la rabay inaad Master Bean iyo dadka Tom and Jerry iyo waxyaalahan dadka ka qosliya inaad raasatid oo daawatid. ilaan ma ahan qofkan qof bil aadan oo walaalka ah. haddii uu xataa daba casar og yahay inaan u sheegno hadda waa inuu furtaa company dadka ka shactireeya, isla markaana ruwaayado u qabto, isla markaana uu ka faa'iideysto idinkana aan maal gelisaan. qodobka labaad, nin daarood ayaa la xiray. runtii waa arrin aad iyo aad u xun in sidaas oo kale loo fasiro. sax weeye, Cabdiraxmaan waa nin daarood, waa nin Mareexaan ah, waa nin mataqaana Soomaaliyeed, waxaana lagu xiray Somaliland. waxa xirayna qabiil ma ahan, waxa xirtay oo xabsiga dhigtay dawladda ayaa dhigtay. marka sidee rabtaba ha noqotee in laga dhigo daarood iyo Isaaq waa arrin aad iyo aad looga xumaado, waxayna dib u soo kicinaysaa wax aan ka soo gudubnay. maanta ismaan lahayn 27 sano kadib ayaa qabyaalad iyo qabiil arrinta lagu shaqaysan doonaa. haddii qabiil tahay anigu de meehi Isaaq. dadka qaar baa waxay maleeyeen inaan Isaaq ahay, waxay soo qoreen idoor baa tahay cuqdadaysan. anigu Isaaq meehi, cagsiga daba casar waa qaraabaan nahay, ilma adeer baan nahay, isku reer baanu nahay. halka aanu maaragtay ka wada nimidna waa daarood Ismaaciil. marka anigu meehi nin mataqaana qabiil iyo qabyaalad ku shaqaysta. haddii ay qabiil macnaheedu sameynayso de waxaan taageeri lahaa daba casar, ayaan taageeri lahaa gariga gardaraba ku taageeri lahaa. laakiin xaqiiqdu saas ma ahan. qofku waa inuu wanaagga meel wanaagsan wax ka fiiriyaa. qodobka dhahaya masayr baa ka haya, masayra ku hayo waa muuqata baa maqli jiray. ya walaalayaal, horta wax masayr looma jiro. daba casar iyo aniga laba qof oo maaragtay kala masayra ma nihin. haddii aan ahay qof shacbiyada raadiyo dad iska gadgado oo mataqaana wuxuu dadka jecelyiin ka hadlo, arrintan ayaan dadka ku raaci lahaa. laakiin anigu saas mihi, waxaan ku hadlaa aragtideydaan ku hadlaa, caqligayga ayaan ku hadlaa. wixii aniga markaas shakhsiyan ka Naasir Xadxid ahaan igu soo dhaco ayaan waxaan ka fiiriyaa dhinaca wanaagsan iyo dhinaca aniga ila muuqata. bili aadan baan ahay, waan khaldami karaa, si khaldan waxaan u oran karaa waa sax, laakiin kuma shaqeeyo ra'yul caamka waxyaalaha ay dadka jecel yihiin iyo waxa ay dadka rabaan kuma shaqeeyo. waxaan ku shaqeeyaa ama aan ku hadlaa aragtida aniga soo maxatay. waa lagu waafaqi karaa, waana lagu diidi karaa. in badanna way dhacday erayax mawaadiic xasaasi ah inaan ka hadlay oo lagu diiday oo dad badan igu khilaafeen, dad badanna igu yeeleen way dhacday. marka ma jirto arrintaas ayaan leeyahay. nin waalan oo xanuunsan bay dadka leeyihiin. ninka daba casar la yiraahdo runtii nin waalan anigu ma arko. waxaan u arkaa nin caqligiisa qaba, ogna wuxuu sameynayo,
farxadiisa ayuu wuxuu ka dhex arkay waxyaalahan uu samaynayo mararka qaarkood qofka farxadiisa wuxuu ka raadiyaa wax walba oo markaa ka heli karo marka in la yiraahdo waa nin waalan waxay wax u dhimaysaa shakhsiyadiisa ay wax u dhimaysaa kow qayru mas'uul ay ka dhigaysaa marfuuc alqalam bay ka dhigaysaa nin wax laga qorayo ma ahano waxa la leeyahay salaad lagu ma lahan soon lagu ma lahan waajibaadka islaamka dhan way ka dhacayaan xaasaskiisi way ka furmayaan ilaa waa nin waalan marka haddii aad tiraahdo waa nin waalan adiga ayaa wax u dhintay waa nin xanuunsan haddii aad tiraahdo waa liiday midda kale xanuunka iyo waalida waxaa bixiya dhakhtarka ayaa bixinaya oo ku qoraya inaad nin waalan tahay marka ninkan cid dhakhtar geysay oo baartay oo tiraahday waa nin waalan hal la qabta ama daawo ku socda horta ma jirto hadduu waalan yahayna oo xanuunsan yahayna marka waad ilaahay subxaanahu wa tacaala ha caafiyo marka labaad dee in la qabto ilaan waxaa la yidhi ninka waalan walaalkiisa ayaa u miir qaba ee walaalihiisa qabtaan ay dejiyaan soo maahan ma in loo kabageliyaa ما إن لو دبرتما ومايا وإن واحد لو شيء قال لقبته حل لو راديا دول لو راديا إلهي سبحانه وتعالى عافي ما داسيو أسجع إيو لمان تنبا سومالي لان بعد كتل مامتي دولد ولا لا تضبي لا تنسى نكور أي سومالي لان شاكتي إني سوماليا كجوستي إسلام مركان أي تهاي دولد كما دحبنا سوماليا aragtidayda ku aadan aniga shakhsiyan maxaan aaminsanahay ana waxaan aaminsanahay midnimada Soomaaliya waan aaminsanahay in Soomaaliya isu timaado waan aaminsanahay waxaan aaminsanahay midnimada inaan wax ku nahay laakiin hadii dadka Soomaaliland degan iyo xukuumadooda iyo dawladooda ay go'aan ku gaareen inay Soomaaliya ka go'aan ay dawlad ka madax banaan sheegteen walaalayaal in loogu magacaabo la yiraahdo dawladda Soomaaliland wax dhibaato ma lahan maxaa yeelay magacii ayaka la baxay wixii ayaka doorteenna inaan ugu yeero waxba xaqiiqda kama bedelayso aragtideedna kama bedelayso waxa la yaab leh dadka qaarkood markay maqlaan dawladda Soomaaliland inay qandha ku qabato halka ay raali ka yihiin dawladda Puntland dawladda Jubbaland dawladda Galmudug marka dadka ka xun inay Soomaaliland dawlad lagu yeero waxa la yaab dib iskugu laabta Soomaaliland ayada sheegatay inay dawlad tahay ka madax banaan Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland ay iskugu yeereen marka in magacooda loogu yeero aniga wax dhibaato marka xasaasiyad ma qabo isla markaana waxba kama bedelayso mowqifka aan aaminsanahay shakhsiyan kana asraad oo kale in aanu midnimada wax ku nahay oo aanu isu soo dhawaano walaalo noqono qodobka ugu dambeeyay rabina sheeg xitaa ceebiisa ayaa faafisay runtii Cabdiraxmaan Dabcasar wuxuu duuba wax qarsoon maahan meel kasta ay ku jiraan YouTube-ka, Facebook-ka, Instagram-ka meel walba ay dadka ku sidaan waxyaalaha uu faafiyo oo ka hadlay anigu marka ceeb uu leeyahay gooni uma faafinin ceebta shakhsiga ee la faafiyo waxa la yiraahdaa wax qarsoon oo qofka si sir ah u sameeyay inaad banaanka soo dhigtid ayaa la yiraahdaa ceebihiisa ugu dambeyntii waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa inuu dhamaanteena caafiyo inaan iscafino in aan mar walba wanaaga ka fiirino oo aan iscaynin hadaad xanaaqsantahay xataa isdaji koobiya cab markaas shaydaanka iska naartid kadib fikirkaada dhiibo dad badan waxay fikirkooda ku dhiibtaan ayagoo xanaaqsan ayagoo caraysan waxa la saaxiibayaan isdajiya shaydaankan iska naara sidoo kale waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa inuu nabadgeliyo asagoo caafimaad qabana la soo daayo danihiisa uu ka guto Soomaaliland walaalkeen Dabcasar aad iyo aad ay u mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh